cudurka ugu weyn ee ku dhaca bini'aadanka kana reeba inay ku qancaan muuqaalkooda iyo wax walba ay haystaan iskana dhaadhiciyaan inay yihiin dad liita oo aan lahayn wax qiimo ah waa cudurka isbarbardhigga. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دو جنال كاغاها نفتا مقعيقو وقاسم محمد داعد waxaana ahay saaxiib kula jecel horumar iyo wanaag isbarbardhigga aad nafsadaada la barbardhigto dadka kale ayaa waxay ku dhaxalsiinaysaa inaad noqoto qof farxadda dhan ay ka luntay aan qiimeyninin nafsadiisa iskuna arka qof liita oo aan nolosha xaq u lahayn inuu ku noolaado waxa uu rabo balse ma ahan arintaas arin sax ah oo ay u qalanto nafsadaada in lagu sameeyo maxaa yeelay dunidan dadka ku nool qof walba waxa uu ku qurux badan yahay sida uu yahay ee haliidin nafsadaada hana ka dhigin waxaysan ahayn nafsadaada waa hantida dhabta ah oo aad haysato uma baahnid inaad u ekaato qof kale sidaada ayaad ku qurux badan tahay waxaad haysato ayaa kaaga wanaagsan waxa uu haysto qofka kale ee aad isla barbardhigayso haliidin naftaada ee ka xooji meelaha aad isleedahay way ku liidataa ku ammaan waxyaabaha aad ku wanaagsan tahay nafsadaada ma jirto qof dhameystiran qof kasta waxa uu leeyahay nusqaan adigana u arag nafsadaada inay tahay mid qiimo leh kaliya ka dhis meelaha ay ka liidato is-ahow adiga hana iska dhigdhigin qof aadan ahayn quruxdaada waa adigoo is ahaada umana baanid inaad u ekaato qof kale Allah subhanahu wa ta'ala sida aad adigu hadda tahay ayuu kugu jecel yahay dadkuna ay kugu jeclaanayaan haddii aad adiga jeclaato nafsadaada kuna qanacdo si walba aad tahay isbarbardhig waxaa kaaga filan nafsadaada isla barbardhig qofka aad ahayd sanadkii la soo dhaafay iyo qofka aad hadda tahay haddii ay jiraan waxyaabo aad ka gaabisay dib u bilow dhamaystirkooda taas ayaa ah noloshaada dhabta ah ee ka fogow inaad isla barbardhigto qof kale adiga waxaa tahay qof qaas ah waxaana lagu abuuray inaad qabsato howlo aad u qalanto sameeyntooda noloshaada ha ka fiirin meesha ay hadda taagan tahay ee dhageyso qalbigaaga waxa ka dhex guuxaya iyo meesha uu doonayo inuu gaaro mustaqbalka dhow ha ku mashquulin dadka sida uu yahay muuqaalkooda iyo waxa ay haystaan sababtoo ah taas waxay ku nacsiinaysaa qofkaad adigu tahay iyo meesha aad doonayso inaad gaarto mar walba xusuusnow qof kasta waxa uu ku qurux badan yahay sida uu yahay bal ila fiiri dadkan Albert Einstein waxa uu ahaa qof aan hadlin ilaa 4 jirkiisii sidoo kale marka uu ahaa ardayga dugsiga dhexe macallimiintiisu waxay ku dhihi jireen waa wiil caajislow ah weligiisna waxba ma baran doono kadib wuxuu noqday aabihii fiisikiska bal ila fiiri qofkan kale Thomas Edison waxa uu ahaa ninkii soo saaray nalka dadkoo dhan waxay ku dhihi jireen wuu waalan yahay waa qof nolosha ka dhacsan sameynta nalka waxa uu ku guul daraystay 10,000 oo jeer marka wax laga weydiiyay oo lagu yiri Edison imise jeer ayaad ku guul daraysatay sameynta ama soo saaridda nalka wuxuu ku jawaabay anigu ma guul daraysan ee waxaan bartay 10,000 wado oo aan lagu soo saari karin nalka markii dambe wuxuu noqday soo saarihii nalka sidoo kale ila fiiri qoftan Oprah Winfrey waxay dadku ku tilmaami jireen qof buuran oo aan lahayn muuqaal soo jiidasho leh kuna soo kortay nolol aad u hooseysa kadib dadaal badan oo ay sameysay aqoonsatana awoodaheeda iyo inay ku qurux badan tahay sida ay u sameysan tahay aysan u baahnayn inay u ekaato qof kale ayaa waxay noqotay atariisho soo saare TV dhiirigeliye iyo deeq bixiye dadkan oo dhan waxay ku gaareen meesha ay tageen iyo nolosha ay dhisteen dadaal iyo inay aamineen inaysan jirin qof iyagu ka fiican waxay aqoonsadeen awoodahooda waxayna ku qanceen muuqaalkooda iyo sida ay u samaysan yihiin sidoo kale adigana maxaa ku diiday inaad aqoonsato kuna qanacdo nafsadaada soo ma ogid inaysan jirin qof aad ka liidato adiga soo ma ogid inaad tahay qof loo abuuray inuu guuleysto
soo ma ogid si kasta uu muuqaalkaagu yahay inaad ku qurux badan tahay. Si aad uga fogaato la barbardhigga nafsadaada dadka kale, waxaan kuu hayaa dhowr qodob oo haddii aad ku dabaqdo noloshaada aad ku qanci doonto sidaad u samaysan tahay iyo waxa aad haysato, aadna iska joojin doonto maanta wixii ka dambeeya isbarbardhigidda dadka kale. Qodobka koowaad, is-ahow adiga. Ha iska dhigdhigin qof kale. Adiga laguma abuurin inaad u ekaato qof kale. Alla weyne waxa uu quruxdaada dhex dhigay adiga qalbigaaga. Ku fiiri muraayadda adiga. Waxaad tahay qof qurux badan, kuna qanac wax kastoo aad haysato iyo si kastoo aad u ekaato. Qodobka labaad, dadka kale wax ka baro. Waxaa jira qaladaad ay galaan dadka. Ka baro qaladaadkooda cashir wanaagsan. Waxaadna raacdaa waxa qalbigaaga uu ku leeyahay oo ah meesha aad mudan tahay inaad gaarto iyo qofka aad u qalanto inaad noqoto. Qodobka saddexaad, ka fogow inay ku xukumaan sheyada. Ka fogow inay ku kontaroolaan waxyaabaha kala duwan oo aad arkayso. Dadka inay haystaan sida lacagta iyo dharka. Qofka haddii aad ku aragto wax ku cajabgeliyay oo aad la jeclaato nafsadaada, ku dheh qofkaasi maasha Allah. Qodobka afaraad, caawi dadka, hana ka rajeynin inay kuu abaalgudaan. Ahaw qof naxariis badan oo caawiya dadka isagoo aan ka rajeyninin wax abaalgud ah. Qodobka shanaad, garo qiimahaaga. Waxaad leedahay qayim iyo dhaqan wanaagsan. Garo qiimahaaga iyo meelaha aad ku wanaagsan tahay. Kadibna ilaasho qiimahaaga oo ha iska dhigin meel aadan u qalmin. Qodobka lixaad, ka fogow inay ku maamulaan baraha bulshada. Ha rumaysan wax walba oo aad ka aragto baraha bulshada. Adiga kontarool baraha bulshada oo yeysan ku kontaroolin adiga. Uguna faa'iideyso dhanka wanaagsan ee waxtarka leh ee looga faa'iideysto teknoolajiyada iyo baraha bulshada. Qodobka toddobaad, ahow qof shukriya. Ku shukri nimcooyinka uu Alle ku siiyay adiga. Uguna ducey dadka inuu Alle u ziyaadiyo nimcooyinka uu siiyay. Ku shukri Alle wanaaga uu ku sameeyay iyo qaabka uu ku abuuray adiga. Mar walbana ahow qof ku qanca qadarta Alle. Qodobka sideedaad, daacad u ahow naftaada. Naftaada ayaa ah mid ka mudan inaad ku ammaanto quruxdeeda iyo qaabkeeda ee ku ammaan mar walba oo ha ka dhigin naf laga wanaagsan yahay lagana qurux badan yahay. Daacad u ahow naftaada oo ka shaqeey farxadeeda, kana fogey wax walba oo lid ku ah. Ugu dambeyn, inaad naftaada la barbardhigto dadka kale waxa ay qiimo dhac ku tahay adiga qofka tahay. Ku dadaal inaad ka fogaato inaad isla barbardhigto qof kale ama aad isku ekaysiiso qof kale adigoo liidaya nafsadaada, xayeysiinayana qof kale. Waxaan filayaa inaad aad uga hesho muuqaalka uuna kuu suurto geliyay inaad go'aan ka gaarto isla barbardhigidda dadka kale maanta wixii ka dambeeya. Soo sidaas maahan? Hagaag. Inoo muuji dhiirigelintaada oo like saar muuqaalkan si aad noogu reebto fariintaadana noogu reeb raadkaaga qaybta hoose ee commentiga. Haddii aad nagu cusub tahay, ku soo bir channelka Hagaha Nafta oo taabo badhanka guduudan oo ay ku qoran tahay subscribe. Kadibna furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya uu soo gaaro muuqaal walba aynu soo dhigno. Inta aan goordhow ku kulmi doono muuqaalka soo socda, waxaan ku leeyahay aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga iyo taageeradaada. Waxaana ku leeyahay mahadsanid.